bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa warbaahinta Afrika ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada warka duhur qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Puntland oo dalab cajiib ah hordhigay xildhibaanada golaha shacabka meedka sargaal ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya oo laga helay hotel ku yaala Muqdisho ra'iisul wasaaraha magacaaban oo wali kulamo xasaasi ah ka wada Muqdisho ra'iisul wasaarihii hore ee dalka iyo madaxweynaha maamulka Galmudug oo kulan ku saabsan doorashooyinka ku yeeshay Muqdisho taliska cusub ee ciidanka AMISOM oo ku baaqay xoojinta dagaalka ka dhanka al-shabaab oo weerar qasaare geysa ka fuliyay gobolka waqooyi bari dalka Kenya sir looga hadlay amniga oo ka qabsoomay caasimadda dalka ee Muqdisho rag burcada oo dil ka geystay xaafado ka tirsan Muqdisho madaxweynaha Jubbaland iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kulan ku yeeshay caasimadda dalka akhbaraadka caalamka intiisa kale aad ku dhageysan doontaan warkeennana waxaa ka mid ah dad ku dhintay diyaarad ku dhacday gobolka Texas ee waddanka Mareykanka baraanka ku taagan yahay awow aamus waxaan dhageysanayaa war ka baxaya radio Afrika idaacada Afrika kula dhageysta ka fur adeer albaabka ha dhageysta warka idaacada adeerkaale idaacada la dhageysta ismaqal wanaagsan dhageystayaal duhur wanaagsan waa duhurnimo talaada taariikhdu ay ku aadan tahay 22 bisha 9aad sanada 2020 ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo inta ka faahfaahsan waana 22 bisha 9aad sanada 2020 aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha magacaabanaya wali kulamo xasaasi ah ka wada magaalada Muqdisho kuwaas oo gogol xaar ah sidii codka kalsoonida ay u siin lahaayeen golaha shacabka sida warbixinta warkaan uu ku dhameystirayo wariyahana Mubaarak Cabdalla maxamed xuseen roble ra'iisul wasaaraha magacaaban ee dalka ayaa la kulmay xildhibaanada iyo mas'uuliyiin qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho kulanka ayaa ku saabsanaa taageerada ra'iisul wasaaraha iyo sidii codka kalsoonida uu uga heli lahaa baarlamaanka iyadoo ay goobta joogeen ku dhawaad 50 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaa sidoo kale kulankan ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaabe ra'iisul wasaare roble ayaa dadaal uga jira kasbashada xildhibaanada iyo sidii codka kalsoonida ugu heli lahaa ra'iisul wasaaraha cusub ayaa waxaa looga fadhiyaa waxqabad badan oo ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka kadib muddo gaaraysa 2 bilood oo uu dalka ra'iisul wasaare la'aan ahaa meydka sargaal ka tirsan madaxtooyada dalka ayaa waxaa laga helay caasimadda dalka ee Muqdisho gaar ahaan hotel ku yaala magaalada Muqdisho meydka sargaal ka tirsan ciidanka ilaalada xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa saacadii la soo dhaafay laga dhaxelay hotel ku yaala magaalada Muqdisho sida ay sheegayaan ilo xogogaal ah meydka sargaalkan ayaa laga helay hotel lagu magacaabo Ridwaan oo ku yaala xaafad ka tirsan degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir waxaana la sheegayaa in sargaalkan lagu dhex dilay gudaha hotelka wali lama ogo waxa sababay dhimashada sargaalkan oo magaciisa lagu soo gaabiyay Shariif isla markaana kamid ahaa ilaalada koofiya casta ee xarunta madaxtooyada Soomaaliya wararkaanu helayna ayaa waxay intaas ku sii darayaan in meydka marxuum Shariif la geeyay xarunta dambi baarista CID-da waxaana socda baaritaano kala duwan oo ku aadan dilkiisa sidoo kalena waxa la sheegayaa in la xiray milkiilaha hotelka Ridwaan ee Muqdisho dhacdadan oo noqotay mid ay aad u hadalhayaan dadka Muqdisho gaar ahaan dadka ku nool degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa hadda waxa socda baaritaano ku aadan sidii loo kala cadeyn lahaa waxa sababay in sargaalkan lagu dhex dilo gudaha hotelka wali laamaha amniga dawladda Soomaaliya wax war ma aysan ka soo saarin dhimashada sargaalkan lagu dhex dilo hotelka madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland ayaa dalab cajiib ah hordhigay xildhibaanada golaha shacabka sida ay ku dhameystirayso warkaan wariyaheena Saarakiin Cabdullaahi madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dan ayaa Muqdisho uga qayb galay xalfad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xalfadani waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dan ayaa sheegay in heshiiskii maamulada iyo madaxtooyada Soomaaliya uusan ahayn mid u gaar ah iyaga oo kaliya sidoo kale ay ka qayb yihiin xildhibaanada golaha shacabka waxa uu sheegay in heshiiskii doorashada xildhibaanada laga doonay in ay meel mariyaan oo ay ku qancaan sidii loo hirgelin lahaa xilli inta badan xildhibaanada goobta khudbad ay ka jeediyeen inay ashtaka ka muujiyeen waxa uu ugu baaqay in la iscafiyo oo si guud ah looga wada shaqeeyo in doorashada guud ahaan ay dalka ka dhacdo waxa uu sheegay madaxweynuhu in la doonayo siyaasiyiinta Soomaaliyeed 4 sano ee la soo dhaafay ka soo horjeedeen isagoo uusan colaadin doonin in ay ka haraan tartanka xildhibaanada taliska ciidanka AMISOM ayaa ku baaqay xoojinta dagaalka ka dhanka al-shabaab sida warbixinta warkaan mar kale uu ku dhameystiray wariyaheena Mubaarak Cabdalla
taliyaha ciidamada howlgalka midowda Afrika AMISOM ee Soomaaliya Diamond Dijeya ayaa kormeer howleed ku tagay ciidamada AMISOM qaybta shanaad ee ku sugan magaalada Jowhar. Booqashada ayaa qayb ka ah isbarasho oo uu ku mariyo dhammaan 6 waaxood ee AMISOM. Ciidamada Burundi oo ka shaqeeya AMISOM ayaa gacanta ku haya qaybta shanaad oo xaruntoodu tahay magaalada Jowhar, halkaas oo xarun u ah dowlad goboleedka Hirshabelle oo qiyaastii 90 kiiloomitir u jirta Muqdisho. Taliyaha ayaa madaxda ciidamada AMISOM kala hadlay dardargelinta waxqabadka ciidamadaasi iyo ka qayb qaadashada dadaalka loogu jiro soo celinta nabadda iyo ka hortagga Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale u baaqay in ay qayb ka noqdaan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa meelaha ay gacanta ku hayaan. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka iyo madaxweynaha Galmudug ayaa kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ka mid ahaan jiray golihiisa wasiirada. kulankan ayaa looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021. waxaan kulan miro dhal ah la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo kaalinta Galmudug. sidoo kale waxaan isla eegnay howlaha u qabsoomay Galmudug loo dhan yahay iyo sidoo kale waxyaabaha hor yaalla maamulkiisa, ayuu yiri Kheyre. kulankan ayaa looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii ugu dambeysaba walwal iyo walaac xooggan ay ka qabeen siyaasiyiinta dalka. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa Galmudug midaysan oo loo dhan yahay waxa uu muddo ku howlanaa intii lagu guda jiray heshiisyadii u dhaxeeyay hogaankii Al-Sunna iyo sidoo kale Galmudug midaysan oo loo dhan yahay. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaana ugu dambeyntii ku guuleystay oo suurtageliyay in Galmudug midaysan oo loo dhan yahay uu soo dhiso. taas ayaana dad badan ay ku tilmaameen inay tahay tallaabo guuleysatay oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo hore u qaaday intii xafiiska uu joogay shaqada ra'iisul wasaarenimada uu hayay. Al-Shabaab ayaa weerar khasaare geystay waxa ay ka fuliyeen gudaha waddanka Kenya, sida warbixinta warkan uu ku dhameystiray wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Cabdiqaadir. warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal xoogan oo dhexmaray ciidamo ka tirsan booliska dowladda Kenya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab kaasi oo ka dhacay deegaan ka tirsan magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab ay weer ku qaadeen kolonyo ay la socdeen ciidamada military ah kana tirsan Kenya xilli ay socdaal ku marayeen inta u dhaxaysa Lafey iyo Alungo Elwaq ee Mandera, sidaasna uu dagaalka ku bilowday. saraakiil ka tirsan booliska Kenya oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac. sarkaal boolis ah ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen 5 dagaalame halka kuwa kalena ay ku dhaawaceen, sidoo kalena markaa dhankooda uu geeriyooday 1 askari, 2 kalena ay dhaawacyo culus markaa ka soo gaareen, isagoona markaa xusay in dhimashada dhankooda ay korortay. dadka deegaanka ayaa soo wariyay in ciidanka militariga ahaa ee weerarka lala egtay ay ku sii jeedeen garoonka diyaaradeed, isla markaana dagaalka dhexmaray labada dhinac uu socday muddo ku dhow hal saac. Al-Shabaab ayaana markaa dhowr jeer weerar toos ah iyo qaraxyo miinooyin ah la egtay ciidamada ama ciidanka dowladda Kenya, waxaana inta badan weeraradaasi ciidanka Kenyaanka ka soo gaara khasaarooyin kala duwan. halka warkaasi durdhagaysaal uu idinkaga imaanayo waa warbaahinta Afrika ee magaalada Muqdisho imika yaatana akhbaraadka caalamka. dad ayaa ku dhintay diyaarad ku dhacday gobolka Texas ee Mareykanka. shilkan ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Hilltop oo qiyaasii 120 kiiloomitir dhanka waqooyi ka xiga Houston. waaxda badbaadinta dadweynaha ee Texas ayaa sheegtay in dhammaan 4 qof ee saarnaa diyaaradaas ay dhinteen. waaxdan ayaa sidoo kale wargeysada Mareykanka u sheegtay in diyaaradan ay isku dayday inay si degdeg ah u degto, isla markaana ay raadiyaha kula xiriirtay maamulka duulista federaalka xilli ay dhacday. diyaaradan ayaa ka kacday. diyaaradan ayaa sida la sheegay muddo aanan badnayn hawada ku jirtay, balse waxaa soo food saartay cillad sida ay ka dhawaajiyeen waaxda badbaadinta. kadibna diyaaradan ayaa waxay noqotay mid si degdeg ah durbo u soo dhacday xilli la isku dayay in la badbaadiyo. taas ayaana waxay noqotay mid aan u suurtagelin duuliyihii diyaaradan ka xaynayay. dhageystayaal intaasi waxaa ku dhan warkii duurood kala socoteen warbaahinta Afrika ee Muqdisho. waad ku mahadsantihiin la socodkii la saanqaadka warkeenna.